Gushayale wadani baale Gushayale wadani baale Gushayale wadani baale Gushayale wadani baale Gushayale 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 وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني عقلي وعني كرامة وطية وقرا علمي له وقتي ولا صعدا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني عقلي وعني كرامة وطية وقرا علمي له وقتي ولا صعدا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني واريا ياوي موسى ياوي يا ياوي موسى ياوي يا ياوي موسى ياوي واريا ياوي واريا ياوي دلكياله يوشياله دلكياله يوشياله يا ياوي موسى ياوي واريا ياوي واريا ياوي واريا ياوي واريا ياوي موسى ياوي موسى ياوي نور كسو ويدايا ووطني وطدي اقونسي ووطني نور كسو ويدايا ووطني وطدي اقونسي ووطني دليني يا وايل ووطني نور كسو ويدايا ووطني وطدي اقونسي ووطني نور كسو ويدايا ووطني وطدي اقونسي ووطني دليني يا وايل ووطني هذه أول فرحة يقولي ما أنت قبل كي تقدر ومن لمدي سيموتي ونقوس كويي لمكي قبل كلا قيبنا يي قبيلة كل تحتي لها بيري شجعان ويي إيشو ديبا وحلة الصي يجو شريته مدحويني خرن كي سوت هاجين وأي سوت شيدين ووريبا بريان ويرادن مدحويني تدكون ياري ما ينصب أنا لكن وتاجر يا العادية وحما أنت فرحتنا إنت تاجرياش حسبك وطني وعدودوده هي عقلكود يا ودوده كم موجنايا maalintii ay campaign ka warahaayeen iyadoo ay muujinayaan isbedelkii iyadoo ay higsanayaan inay isbedel sameeyaan waxaan idinka mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ay isugu soo baxdeen walaalayaal xisbiga wadani waa xisbigii isbedelka waa xisbigii dimuqraadiyadda waa xisbigii hormoodka walaalayaal waxa xisbiga wadani wuxuu xisbiyada kale kaga duwan yahay waa xisbigii isbedel doonka waa xisbigii musuq maasuqdiidka waa xisbigii horumarka dalkeenu maanta halku maraya waa ogtihiin siyaasadda arrimaha gudaha halku ka maraya waa ogtihiin dhaqaalaha halku ka maraya waa ogtihiin qabyaaladda halku ka maraya waa ogtihiin waxaynu diyaar u nahay soo diyaar uma nihin intaaba inaynu bedelno togdheer waa midaysanahay soo maaha togdheer waa gobol kaliya soo maaha waxbariya galbeed la yidhaahdaa miyay jiraan waxaan leeyahay taageerayaashii kulmiye iyo 4 nin bacayska ahaa ee odhan jiray xisbiga wadani bariga burca waxba uma yaalo waxaan leeyahay maanta ku quus qaata waad aragtaan haddaad odhan jirteen bariga burca wadani waxba uma yaalo indhihii fayaw iyo caqligii saliimaha uu arkaa waxaan leeyahay isa soo dhiibo cafis yaanu idin fidinno maanta ayaa muujiseen cududii xisbiga iyo isbedelkii shacabka
waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal inaad maanta ka saarteen gobolka togdheer qabyaaladii iyo qobqobkii iyo kala qaadqaadkii oo aad muujiseen midnimadiinna iyo isbeddelka hadba qofkaa doonaysaan sidaa u doonaysaan ama u rabtaan waxaan idinku boorinayaa hal qodob nabadgelyada amniga idinkaa leh guushana idinkaa leh ninka dawladda dhisaya madaxweyne cabdiraxmaan maanta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa brofesor maxamed doonaya inuu saarow nabadgelyada ka tali maanta aad baan u faraxsanahay aad iyo aad waxaan uga imi burco 5,000 oo mayl ayaan maanta uga imi inaan qabyaaladda ka saaro inaan xaqiinna u daado 5,000 oo mayl baan uga imi maanta halkudhigeedunu waxa weeye bulshadu waa wada wadani burcada waa wada wadani ninbay lixiyelkadiise bidow calalkaa ku sheegay ma waxaad aanti jirteen xusbiga tulmiye intuu dalka qabtay $100 malyan iyo boqol buu daanay malyan iyo boqol maalintuu qabtayna wuxuu ahaa 600 iyo 70 buu haya 650 buu mariyey miyaad ma wax isku dhowmaa sow sixir marar maaha ma taasaad cod siisaan ma taasaad cod labaad siisaan asiinina waxa weeye muuse biixi maalintii dhoweyd ee la wada hadlayay madaxdu wada hadlaysay saddexda musharax wuxuu yidhi dumarta iyo curyaamiinta iyo dabooyaha tixgelin baa siiya war dumartu iyadaa dadka u badan iyadaa majority dabooyaha maanta majority buu noqday tixgelin uma baahnaa tixgelin muuse uma baahnaa waynu sagootiyeynaa madaxweynaha laakiin muuse waxaa leeyahay igu ballamidii way dhammaatay muuse imsaa lagugu ballaminayaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta 25 sannadood magaalada burco oo halkii lagaga dhawaaqay ah waxaad weli taagantihiin sidaan marar hore sheegay dhallinyarada burco xafiis ay shaqada waraaqa ku xaraystaan male sayladii burco ee aad ogeydeen ee aynu caanka ku lahayn way guran tahay miisaaniyadda 67 wasiir waxaa lagu isticmaalaa oo aanay dhinacna u dhaafin caasimaddu waa tii somalilan ee waa siyaasad xumada kulmiye walaalayaal waddani wuxuu maanta waxaad dooranaysaan hal jaanis baa idin soo maraya jaaniskaasi waa kaad maanta haysataan waa kaarka aad maanta haysataan waxaad ku dooranaysaan nolol wacan mustaqbal ifaaya burcoo waxa guri shaqa abuur yeelataa burcoo dhallinyaradeeda aanay tahriibin kala qaybin aanay helin haddaad taa doorataan waddani baa idin hayo waa rajada keliya shacabku hayo waxaad kala dooranaysaan busaaradda sixir bararka gaajada abaaraha lacagtii walaalayaal ay ugu dambaysay halkaa maxamuud xaashi baa shalay ka hadlayey waar 7 sannadood buu ii hor taagnaa 10 malyan abaaraha loo ururiyey meeluu kaga warramo maxamuud xaashi idiin buu sheegin ummadda reer burco buu sheegin 10 malyan ka soo kabashada buu sheegin 4 haddii magaalada uma baxno dadkeennii caydhoobay baa walaalayaal daadsan xagguu mariyey maxamuud xaashi 10 malyan isagaa guddoomiye ka ahaa taariikhdaa la xisaabtami doonta ragga gaawaha soo culanaya waa kuwa muuse walaalayaal intii ku xeerneed baa ka carartay dadkii ugu dhowaa baa ka cararay farriintayda ugu dambaysaa waxay tahay waxaan idiin sheegayaa isbeddelku gacantiinnu ku jira waxaana weeyaan dadka aad arkaysaan waddani muu shaqaysan niyaddoodaa ilaahay u soo jeediyey meel kasta maanta waxa ka socota oo fagaaraha hargeysa ka socota oo kaceerigaabo ka socota oo saaxir ka socda soo bax kacdoon shacbi ah walaalayaal waxaan idin leeyahay kacdoonkaa ka hadhina hadraawi wuxuu yidhi waan ku gebagabaynayaa guushaada waa lala jiraaye geestaa ka ahaanin waan inta hadhayna guushaa soo raaca reer togdheer oo maanta isu soo bixii xisbiga waddani maalintii koowaad ay 80% burco dadka ku noole ay taageeradiisa u soo baxeen waxaan walaalayaal leeyahay dhallinyarada reer waddani waxaynu ku ciilbaxaynaa waxaynu dhibaatadayna haysada kaga baxaynaa farteenna inagoo maalinta 13 Noofembar aynu ku hubsanno sanduuqa codka walaalayaal dhibaatooyinkayna haysta ee waxba uu ka qaban kari waayay kulmiye ama xukuumadda kulmiye ay waxba ka qaban kari weyday waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahayna kula taageeraynaa xisbiga waddani iyo hoggaankiisu inay inaga dugsiin doonaan oo wax ka qaban doonaan burco dayurad baa iman jirtay garoonkeedu wuu furnaa dadkeedu hargeysa iyo barbare kama soo degi jirin waddani baa ka soo dejinaya burca institute school la yidhaahday lahayd dunida ilaahoo dhan baa looga iman jiray maanta uu siduu yahay waa ogtihiin halkaasay ku qoran tahay burco kaa dib dambaysa sidaa u ahaan maayo
burca dadka abaaroobay ee ku soo qaxay ee aan cidi damaano qaadin ma noqonayso abaartu barnaamijkiisay ku jirtaa bajad buu samaynayaa wuu xakamaynayaa kayd buu samaynayaa dadkuu daryeelayaa wuu ka shaqaynayaa adduunka kale sidii uga shaqeeyey buu uga shaqaynayaa walaalayaal waxaan idin leeyahay maanta waxaynu haynaa nin rag aynu dooranayno oo haddii bayd maayo midnimada iyo iskuwadka iyo caqliga iyo diblomaasiyadda iyo ictiraafka intaba aad ku aaminaysaan dhalinyaro kiinii weeyaan waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa isubaxan ballaadhan ee nagu soo dhowayseen ee ku muujiseen cududiinnii ee quruxdu ku dheehan tahay ee karaamada leh ee sharafka leh ee maanta qof kastaaba tiifiga markuu ka arko indhuhu soo baxayaan guushu waa waddani guushu waa waddani guushu waa waddani waa xisbiga la dagaalamaya qabyaaladda waa xisbiga maanta la dagaalamaya in laydin kala qaybiyo hawsha ay wadaan ay ogsoon tihiin in dib laydinku xidho qooqoob ma oggolin in laydin kala qaybiyo ma oggolin kulmiya wuxuu ku guulaystay inuu kala qaybiyo wuxuu ku guulaystay inuu burca laba ka dhigo wuxuu ku guulaystay inuu maanta murashax keenayna kala qaybiya waxaannu idin leenaha walaalayaal waxaannu idin wadnaa murashax guul keenay oo idin midaynaya oo aan idin kala firdhinayn oo isku kiin ururinaya oo dadkiinna maanta aad arkaysaan iyo noloshaa ku nooshihiin iyo dhibaatada idin haysata ee abaara leh ee sicir barar leh ee leh qaxood dadkeenniyo soo qaxay oo caydhoobay oo xoolahoodii ka baxeen maantana hantidii ummadda ay boobayaan oo loo aabba yeelayn oo hantidiinii la boobay ilaa xabaalihii baa la qaatay maanta ka doonaya murashaxnimada hantidii ummaddu haystaa hantidiinnii buu haystaa war markaasaa ina wadi karaa markaasaa ina midayn karaa markaasaa wixii loo qaban karaa shacbigeennii u baahan yahay liidar hoggaamiye dadkan wuxuu qaban karaa uma baahnin hoggaamiyeyna kala qaybiya maanta waxaad dooranaysaan hoggaamiye dhab ah oo run sheegaya oon waxba boobin oo mutacallima oo nabad keenaya oo isku keen ururiya ma doonaya mid ina kala firdhiya mid ina kala qaybiya mid qoobadiina geliya dooni mayno